Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada Somali Online Money Makers oo bartender la Somali Online Traders. Magacaygu waa Khaliif Maxamed Cabdullaahi. Hadda waxaan rabnaa inaan sharaxno sida loo samaysto account PayPal ah. PayPal waa bangi online ah oo kuu saamaxaya inaad online lacag ku dirtid laguna soo diro iyo sidoo kale inaad adeegyo online ah aad ku iibsatid. PayPal bangiga wuxuu uga fiican yahay bangiyada markaad wax ku iibsanaysid waxaa lagu weydiinayaa macluumaadkaaga oo dhammaystiran sida magacaaga, da'daada, bank numberkaaga, passwordkaaga iyo PIN-kaaga oo mararka qaar laga yaabo in dad wanaagsanayn ay u gacan galaan. Halka PayPal-ku uu dhiibayo oo kaliya emailkaaga oo aan macluumaadkaaga kale aanay u gudbayn ciddaas ay markaas wax idin dhex marayaan. Haddaba aan bilowna PayPal iyo sida loo samaysto. Markaad timaado website-ka PayPal ee sidaan ay kusoo baxdo sign up ayaad leedahay labada button ee kor aad ka aragtaan. Sign up meesha ku qorantay markaa ku dhufatid saan oo kale ay kusoo baxday personal account ayaa ku dhufanaysaa continue ayaa leedahay. Marka halkaan timaadeed waxaa lagu weydiinayaa inaad emailkii aad ku samaysan lahayd aad gelisid iyo passwordkaaga. Passwordka laba mar ayaad gelinaysaa labada meelood oo kala koraysa ee hooseysa. Passwordkaagu si uu xoog badnaado ama account-kaaga aan laga hackar garayn waa inuu xarfa xisaab iyo calaamado uu ka samaysnaadaa. Sidoo kale xarfaha xataa waxaa wanaagsan in qaarna capital ku noqdaan qaarna small letters. Marka intaad dhammaystirtid ayaad continue dhihi doontaa. Continue markaad tirahdid ayuu haddana ku keenayaa boggan kale ee laga rabo macluumaadkaaga inaad kusii dhammaystirtid. Sida ujeedaanba waxaa lagu weydiinayaa magacaaga koowaad, magacaaga labaad, jidkaaga nambarkiisa, magaalada aad degan tahay, gobolka ay tahay, post code-ka ama zip code-ka qofba siduu u yaqaano, mobile numberkaaga, shirkadda terms and conditionskeeda oo aad saxiixaysid iyo intaas markaad dhammaysid oo aad dhihi doonto I agree and create account. Haddaba anaa buuxbuuxinaya ila socda. Marka anu hadda magaalada Washington Mareykanka ayaan iskaga buuxbuuxinayaa. Marka laakiin qof walba hadhow wuxuu ku buuxsan doonaa meesha uu joogo isagu. Marka intaad tirahdid ayuu haddana ku keenayaa boggan kale ee kugu weydiinayo inaad bangiga ku xirtid. Laakiin anu mar rabo inaan bangiga aan ku xirno waa iskaga gudbaynaa option-kan. PayPal-ka ayaa iskaga dhufanaysaa kore ee dhinaca bidixda ee kore si account-kaagii uu kuugu sii wado. Haddaad rabto I will do this later waa iska dhihi kartaa ama haddaad rabto bangiga inaad markaas ku xirteen waa ku xiri kartaa. Markaad PayPal ku dhufatid ayuu ku keeni doonaa account-kaagii PayPal-ka. Hadda waxaa calaamad cagarka check lagu saaray inaad account-kaagii la sameeyay. Hadda waxaan rabnaa emailka inaan confirm garayno. Email ayaa leedahay ku dhufanaysaa email ayuu kusoo dirayaa. Email kusoo diray ayaa furaysaa. Yes, this is my email ayaad leedahay. Markaa ku dhufatid ayuu wuxuu furi doonaa wuxuu ku gudbi doonaa boggaagii PayPal-ka. Markii boggaagii PayPal-ka aad timaadid sidaan oo kale laakiin intaad imaan ka hor ayuu wuxuu ku weydiin doonaa passwordkii aad hadda ku samaysatay PayPal-ka inaad gelisid. Passwordkii hadda markaa PayPal-ka samaynaysa aad u samaysatay ayaad gelinaysaa. Submit login ayaad leedahay. Login markaad tirahdid intaan ku furmin ka hor ayuu halkan wuxuu ku weydiin doonaa dhowr su'aalood oo ah account-kaaga si aad safety-giisa aad kor u sii qaadid. Wuxuu ku weydiin su'aalahan uu diyaariyay ayaa wax ka dooranaysaa meesha ku dhalatay camal oo kala dooranaysaa ama qofkaad jeceshahay ama waxyaabaha aad ka heshid ama iskuulkaaga. Marka meesha ku dhalato kala iska gashanaysaa ama iskuulkaaga magaciisa ama waxyaabaha aad ka heshay. Marka intaas tirahdid ayaa submit leedahay. Markaa submit dhahdid ayuu haddana wuxuu ku keenayaa halkan kale oo ah in bangiga ama credit card labaas midkood aad ku xirtid. Anaga labadaba hadda ma rabno inaan midkan ku xirno. PayPal ayaad iska leedahay soo haddana account-kaaga wuu kugu sii celinayaa. Hadda account-kaaga waa la sameeyay, email-kaaga confirm ayaa lagu sameeyay. Hadda mobile-ka ayaan haddana confirm leenahay. Mobile ayaa ku dhufanaysaa. Mobile markaa ku dhufatid halka waa dashboard meel ka mid ah account-kaaga dhexdiisa ayuu ku keeni doonaa. Halka hoose phone ku qoran tahay ayaa confirm leedahay. Confirm-ka markaad tirahdid mobile-kaagii ayuu code u diri doonaa. Code-kii baa soo qaadaysaa halkan ayaa gelinaysaa. Confirm ayaad ku dhufanaysaa. Sidaas waxaa confirm ku noqday ama isku xirmay mobile-kaagii iyo PayPal-kaagii. Thank you for confirming your mobile number I'll yiri. Marka hadda account-kaagu almost waa secure. Waxaa ku dhiman oo kaliya inaad bangiga ku xirtid. Bangigana kolley qof walba waddanka uu joogo bangiga uu ka haysta ayaad ku xiri doontaa. Waana wax yar iska sahlan. Labada option ee kale ee ku hartay ayaad bangiga ama credit card midka doontid aad ka dooranaysaa. Sidaas ayuuna account-kaagii haddaba active ku yahay. Marka halkaa hore qofka magaciisa ku qoran yahay sawirkaaga iska saar kartaa magacaaga weeye meesha. Marka account-ka PayPal-ka sharaxaad ku saabsan ayay ahayd taas. Waa Somali Online Money Makers iyo Somali Online Traders oo idin leeyahay waa ku mahadsantiin sida noo daawateen. Halkan videoga hoostiisa sidoo kale waxaad ka heli kartaan linkiyo idin caawinaya iyo WhatsApp group ayaa jira sidoo kale dadka laga caawinayo
iyo linkiyo kale oo muhiim ah marka halkaan nogala soo xirma videogana subscribe dhahaa si videoyada noo soo socda aynan u seegin mar kale ayaan idiin mahad celinaynaa aad baa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh